wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ayaa maanta furtay qalab cusub oo ay dhawaan dalka keentay qalabkaasi oo lagu maamuli doono hirarka isgaarsiinta iyo xakamaynta shucaaca taawarada isgaarsiinta munaasabada lagu daahfurayay oo ka dhacday xarunta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland waxaa ka soo qayb galay wasiiro mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda madax ka socotay shirkadaha isgaarsiinta dalka telefishinada iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland Dr. Cabduuli Sheekh Cabdullaahi Suufi waxaanu sheegay in qalabkan ay dalka keenan wax badan ka tari doono cabashadii ay bulshadu ka muujisay saameynta taawarada isgaarsiinta sidoo kalena waxa uu qalabkani kor u qaadi doonaa tayada adeegga shirkadaha isgaarsiinta ee dalka waxa maanta aad aan ugu faraxsanahay inaan halkan ku soo daahfurno himilayn dheer aan wasaaradda gudaheega hawl badan naga gashay oo ah in la hirgeliyo qaab loo maamulo khayraadka dabiiciga ah oo ah hirarka isgaarsiinta ama biligta waxa la yiraahdo ama signalka waa nidaam 3 wadano naga horeeyay Afrika ay hore ugu shaqeynayeen marka runtii inaynu qayb ka noqono maamulka khayraadka Afrika ay maamulaysa inaguna aynu qayb ka noqono marka in la helo qalabkii lagu maamulayay kadib markii ay wasaaraddu suurta gashay in miisaaniyadda qaranka ay ka soo iibiso ay diyaariso xeer nidaamiyihii lagu maamulayay ay raacsan yihiin halbeegya iyo procedures lagu maamulayo mahad ilaahay qaybta kale anaga aad noogu muhiimkiina waxa weeye waa biligta ama signalka ka soo baxaya towerka inaanu la socono powerka mar walba in badan ba ay bulshadu ka cabatay TV-yada laga hadlaa toddobaadkii u dambeeyay laga hadlayay towerka kala duwan maanta dabadeed qof intuba ayers ka soo istaago banaan yiraahdo waxa jira dhici mayso halka laga soo caawdo oo qaadayna qalabkan geenayna oo cabirayna hadii cidda lay markaa ay dhaafto xadkii loogu tala galay talaaba laga qaaday hadii qofka eedaynaya aanu cadeyno hayna isaga talaaba laga qaadaya waxa aynu la iska eedaynay maanta dabadeed iman mayso agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland oo isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay marti sharaftii iyo mas'uuliyiintii kala duwan ee munaasabadaasi ka soo qayb galay waa soo dhaweynayna dhammaan madaxda sharafta ee qaranka ee maanta u soo horeyna ka qayb galaan wasaaradda kala qayb galaan daahfurka barnaamijkan taasina waxay ku tusaysaa qiimeynta ka soo qayb galkiinu qiimeynta aynu qaran ahaan qiimeynayno tiknoolajiga iyo horumarkeeda wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha gaadiidka xiriirka golayaasha caafimaadka wasiir ku-xigeenada wasaaradaha warfaafinta maaliyadda caafimaadka iyo mas'uuliyiin kale oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa wasaaradda ku bogaadiyay tallaabadan ay hore u qaaday ee kor loogu qaadayo tayada isgaarsiinta Somaliland waxaan aad ugu hambaleynayaa bandhiga maanta ay halkan ku soo bandhigeen qalabkan aynu aadka ugu baahnayn wasaaraddan wasaarad cusub ay ahayd oo dhismihii dawladda xukuumadda imika joogta lagu soo daray halka imika maraysa markaaynu eegno xawle aad u wanaagsan bay ku socotaa wasiirka iyo wasaaraddana waan hambaleynaynaa aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno xafladan lagu shaacinayo qalabka lagu isticmaali doono spectrum management systemka ama qalabka maamulka hirarka wasaaradda iyo qaranka waan ku hambaleynayaa waxaan rajeynayaa in ay wax badan ka qaban doonto ujeedada inaynu u fikirno maanta un maahe ubadka aynu dhali doono inaan raad muuqda iyo sunno fiican ay naga daydaan aanu abuurnaanu jecelahay waynu u hambaleynaynaa wasaaradda si kaliya laaba hawsha ay qabatay ee wasiirku uu ku hogaaminayo oo muuqata waanaynu kula shaqeynaynaa ilaahayna waynu uga mahad celinaynaa in la keeno qalabka lagula soconayo hirarka noocyadooda iyo kala xadeyntooda iyo qiimeyn lagu sameeyo waxyeeladooda iyo waxtarkooda waxaan aaminsanahay wax weyn baa inoo qabsoomay waa ilaahay fadhiyay wasaarad ahaan waxaan u xil saaranahay waa ilaalinta caafimaadka qofka oo mandate-kaas aanu haysanaa maqaasidu shareecaha mid ka mid ah oo ah qofka maskaxdiisa la ilaaliyo jirkiisa aad waxaan u soo dhaweynayaa barnaamijkan cusub iyo farsamadan cusub ee wasaaraddu ay inoo soo bandhigtay wasiirka iyo ciddii kala shaqaysay tiimkiisa aad baynu ugu mahadnaqaynaa ganacsigeena iyo dawladnimadeena way kala kortay ganacsigeenu aad buu u xoog weynaaday heer wuxuu gaadhay aan la maamuli karin xaggii la regulate garay karin marka maanta wasaaradda maadaama tiimka hormoodka ka wasiirka DG-ga iyo shaqaalaha kala duwanba ay aqoontii la garanayaan ka dawlad ahaan xukuumad ahaan
aad iyo aad baan ugu faanaynaa wasaaraddan. qalab aynu baahi weyn u qabnay buu ahaa waayo dal ahaan horumarkeenu waxa xiriirtoosa la leeyahay horumarkaanu ka sameynay technology-ga dhan walba marka dee technology-gii iyo hirarkiina ma kala maarmaya ka wasaaradda warfaafin ahaan wasiirka wasaaradda technology-ga aad iyo aad baanu ugu hambaliyeynaynaa dadaalada kala duwan ee uu ka sameeyey muddadii xilka wasaaradda joogay. runtii tiknolojiyaddu xagga caafimaadkana way ka qayb qaadataayoo dee anaga social distancekii halkaa ka galnay. qalabkan maanta aynu dah furaynaa waa qalab muhiimad gaara oo la qaranka runtii anaga dee qayb buu naga soo gaadhayo qaybta dakhliga annagu haddaan wasaaradda maaliyadda nahay wixii allaaliya wixii dakhli kordhina ee ku saabsan dakhliga runtii qiimo gaara baanu siinaa. waa ilaahay xamdigii oo aynu maanta marayno inaynu kala hagno hirarka isgaadhsiinta ee cirka ama hawada waa wax lagu faano marka laga eego halka dalkeenanu ka soo kacay muddo dhoweyd iyo halka aynu marayno. mas-uuliyiin ka socday shirkadaha isgaadhsiinta dalka oo iyaguna munaasabadaasi hadalla ka jeediyey ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan qalabkan ay wasaaraddu dhowaan dalka keentay. wasaaradda iyo shirkadaha wada shaqeyn baa ka dhaxaysa waxaa halkan aad looga hadlay shirkadaha in laysu furo oo baa laga hadlay arrintaa iyo wasaaradda shirkaduhuba gacantay ku hayaan hawsheeduna way socotay insha allah waana marumay soo gabagaboobi doontaa haddii la haydmo. sharcigaan wax ku leenahay kala xadayntanaan wax ku leenahay in wixii cid walba xaq u lahayd ay hesho annagaa diyaar u ah annagaa dadka ugu horeyna. wasaaraddu waxay keentay wax shirkaduhu ay tabayeen oo ka maqnaa bay keentay annagaana ugu horeyna dadka ugu horeeya ee ka faa'iidayeen noqonayna ma aha wax shirkadaha lagu mataqaanay lagu xakameynayo shirkadaha wax ay mataqaanaa lagaga qabanayo laakiin waa wax shirkadaha u wanaajinaya wixii ay hayeen